Ilwaad Elman oo si weyn ugu ololeysa nabadda ayaa ku guuleystay abaalmarinta ugu sareysa qaaradda Afrika ee sanadka 2020. Ilwaad oo ah gabar Soomaaliyeed ayaa madax ka ah hay'adda loogu magac daray aabaheed oo la yiraahdo Elman, taas oo u ololeysa ilaalinta xuquuqda aadanaha. Abaalmarinta ay ku guuleysatay Ilwaad Elman oo ah mid aad u sareysa ayaa waxa bixisa hay'adda caalamiga ah ee German Africa Foundation. wasaaradda arrimaha dibadda Jarmalka oo iyaduna maalgelisa hay'adda German Africa Foundation ayaa sidoo kale shaacisay in Ilwaad oo ah gabar dhalinyaro ah lagu sharfi doono dhamaadka bishaan magaalada Berlin. dadka ku guuleystay biladan oo horey loo siiyay ayaa dhammaan waxa ay u ololeeyaan dimuqraadiyadda, nabadda, xuquuqda aadanaha iyo farsaanka iyo dhaqanka. si kastaba ujeedada loo bixiyo abaalmarintan caalamiga ah ayaa in lagu muujiyo muuqaalka wanaagsan ee Afrika, waxaana ay bilaabatay 1993. Audio Jungle.